jasiirad aad u fog oo ku taala cirifka koonfureed ee adduunka waxaa ku nool shimbirka ugu yar ee aan duuli karin. shimbirkan wax khatar ah oo ku hareeraysan oo uu ka cararaa ma aynan jirin, arrintaas oo keentay inuu iloobo sidii uu u duuli lahaa. saynis yahano ayaa sameeyay dahrog cajiib ah kadib markii ay hubiyeen in farcii hore ee shimbirkan uu duulista iloobay xilli aad u fog, maadaama aanay jirin wax khatar ah oo ay ka cararaan oo naftooda halis gelinaya. shimbirkan waxa uu ku noolaa jasiiradda Inaccessible Islands ee cidlada ah ee ku taalla koonfurta badweynta Atlantic. sida ay qortay jariiradii Daily Mail, 100 sano wax ka yar saynis yahanadu waxay aaminsanaayeen in shimbirkani uu lugihiisa ku socon jiray weligii, waxayna u bixiyeen magaca Atlantisia. laakiin ma aanay ogeyn sababta shimbirkani lugihiisa uu adeegsado si joogto ah oo garbihiisa uu isticmaali layahay. shimbirkan oo halis ugu jira inuu dabar go'o ayaa cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Lund University ee dalka Sweden ay is saareen mas'uuliyad in shimbirkani uu mudan yahay in daraasad laga sameeyo. 4 cilmi baarayaasha kamid ah ayaa isku raacay in shimbirkani asalkiisii hore uu ka soo hijrooday Latin America oo jasiiradda uu soo guuray 1 milyan iyo bar sano ka hor. shimbirkan ayaa degay jasiiradda Inaccessible ee lamagalayga ah ee ku taalla koonfurta badweynta Atlantic. jasiiradahan oo ahaa kuwa xasiloon 100 sano oo isxigxigay, shimbiruhu waxa ay gabeen awoodii duulista si tartiib ah ilaa socodka oo qura ay caadaystaan. aragtida isticmaalka iyo weliba dayacaadda theory of use and neglect ayaa si aad ah u qabatay dareenka khubarada cilmiga geneticska. in badan oo ka mid ah si aad ah ay u aaminsan yihiin aragtidan. sidoo kale aragtidan waxa ay leedahay in xubnaha jirka ee la isticmaalo ay ka awood badan yihiin jirka intiisa kale, halka xubnaha aan wax xoolaha lagu qabanin ay si tartiib ah u daciifayaan, xilliyada qaarna laga yaabo inay ka qarsoomaan indhaha.